waxa kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaad la wadaagi doonaa muuqaal halkan idinkaga muuqdo oo ah muuqaal dareen weyn ama markaasi si weyn bulshada Soomaaliyeed u kiciyay dhamaan aaladaha kala duwan ee social media sida TikTok, Facebook waxa si weyn u haysta muuqaalka hooyadan oo sida weyn markaasi dhiirgelinta balaaran u siinayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmada Xudur iyo Qaydar Cadde aageeda oo howlgallo qorsheysan ka sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay iyo waliba sidoo kale macluumaad kale oo cajiib ah halka kula wadaagi doona maxaa ka jira in markaasi ciidamada daraawishta maamulka Koonfur Galbeed saaka howlgallo qorsheysan oo ay sameeyeen oo markaasi ay ku qaadeen degmada Qasax Dheere iyo waliba sidoo kale aageeda oo halkaasina jab weyn ay u gaarsiin kooxda aas halkan ay kula wadaagi doona waxa kale oo aan idin la wadaagi doona macluumaad kale ee si weyn ugu soo baxay saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo qayb lixaad leh ka geysay dagaalkaasi ka dhanka kooxda aas iyo waliba hogaaminta sida ugu guuleysteen macluumaadkaas iyo macluumaad kale oo dheeraad halkan kula doona muuqaalka hadii ay tahay markii ugu horeeyay ku soo gaaro la gaaro share gare saaxiib far badan u gaaro way soo dhawaada hooyo markasta laakiinse tani waxay maanta qabsatay social media iyadoo markaasi guud ahaan dadka inta badan isticmaala TikTok muuqaalkan si weyn u soo qaadanay waxaana galiyay dareen hooyanimo iyo waliba sidoo kale garab istaaga weyn ee u muujisay geesiyaasha sida weyn markaasi ugu saaray deegaanada Qaydar Cadde iyo waliba sidoo kale Xudur aageeda ee kooxdii aas ku dhuumaleysay muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya hadallo cajiib ah ayaa baxay oo halkaasina ku ahaayeen ciidanku waa isku xirmeen bulshaduna waa ay ku xirantay sidoo kale doorka ugu wanaagsanna waa kicinta iyo waliba sidoo kale isku furidda deegaanada go'doominta ku jira ee muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo qorsheysan markaasi looga sifeynay kooxda aas iyadoona markaasi hadalkaasi si weyn maanta baraha bulshada u qabsaday Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah halkan oo markaasi muuqaalkan ka imaaday ayaana cadeen u ahaa sida markaasi ugu dhiiran yihiin bulshada in markaasi laga dulqaado cadowga iyo waliba sidoo kale wax walba duulaan ku ah saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada hogaaminaysay howlgalkan ka dhanka ah ee maanta deegaanadaasi Xudur iyo waliba sidoo kale magaalooyin kale ku gaadaaman sida weyn markaasi looga fuliyay ayayna markaasi kaga hadleen yoolkooda ku aadan iyo waliba sidoo kale aragtida ay kala yihiin sidii ay ugu sifeen lahaayeen ama markaasi ugu hortagi lahaayeen dhagaraha iyo waliba qatarta ee xoogan ay u maleeyeen kooxda aas deegaanada Xudur iyo waliba sidoo kale Qasax Dheere Boqol intiisa oo muddooyinkii ugu dambeeyay lagu arkay howlgal si weyn markaasi bulshada shacabka ciidanka dhamaantood bay u heelan yihiin tanina waxa ay tusaale muhiim u tahay amarkaasi ay muujinaysaa in mar kale dib loo xoojin doono hadii ay ahaan lahayd howlgallada ka dhanka ah ee dalka markaasi looga sifeynayo kooxda aas iyo waliba sidoo kale waxyaabaha lidka amniga ee Soomaaliya guud ahaan iyadoona markaasi maanta Soomaaliya qaybo fara badan oo kamid ah si weyn looga hadlayo hubka ugu weyn ee maanta Soomaaliya ka soo degay walow markaasi aanan si rasmi ah looga hadlin haddana waxa jira in markaasi dawladtus military ciidan ay u naqan doonto laakiinse muuqaalkan ayuu daaran yahay sheekadeena oo ah markaasi dareen weyn galiyay bulshada qaybaheeda kala duwan taasi oo markaasi bulshada reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si weyn maanta u hadalhayaan waana muhiim in muuqaalada sidan oo kale dhiirigelinta u hageesiyaasha iyo waliba sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in la soo muujiyo misna markaasi social media aad ugu soo bataan tani waxay tusaale u tahay in hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay u midoobaan difaaca dalka dadkooda iyo waliba diintooda maadaama ay cadowgu ay u soo dhigteen in dhalintooda ama dhalinyaradoodu ay marin habaabiyaan misna maanka ay ka qaataan iyagoo markaasi waxyaabo aan micno galaynin ugu sheekeynay laakiinse halkaasina dhibaato weyn ay kala kulmayaan waxaana sidoo kale run ahaantii muuqaalkan saameyn weyn ku yeeshay dhammaan dadka Soomaaliyeed sidoo kale waxa la arkayay madax badan oo kamid ah muuqaalkan si weyn iyagu qodooda soo qaadanay tanina waxa ay markaasi muhiim u ahaan doontaa hooyo kasta iyo waliba sidoo kale wiil kasta oo Soomaaliyeed oo jooga geeyiga Soomaalida ay degto iyo caalamka qaybihiisaba inuu markaasi ku dhiirado in cadowga iska celiyo waana muhiim in markasta ay laga hadla horumarka iyo waliba sidoo kale guulaha waaweyn ee ku talaabsanayaan bulshada reer Xudur Qaydar Cadde aageeda iyo waliba sidoo kale yoolka ay kala yihiin dawladnimada Soomaaliya iyo waliba sidoo kale aragtidooda ku aadan waana muhiim in markasta ay la soo hadal qaada ama markaasi la soo muujiyo qof kasta ee ku dhiirada misna geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed si weyn u dhiirigeliya isagoo markaasi kaalin mugle ka qaadanayo dhankiisa waxa la siinay askartan waa caano iyo buskud oo looga horgeynayo iyagoona markaasi cadowga guulo weyn ka soo gaaray bulshadana markaasi loo saf ay ugu jiraan sidii ay u siin lahaayeen cunno raashin noocyo kala duwan oo markaasi loogu talagalay ama saanad ciidan oo markaasi bulshadu ay ugu talagashay wixii cunno iyo cabitaan iyo biyo ahba markaasi ay ku qodan lahaayeen goobaha furimaha hore ayaa loogu geeyay kadib markii magaaladooda ay ku soo laabteen
waa la siiyey waana farxaddii ugu weyneed ee ay dareemayaan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed iyo weliba soo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan iyagoona markaasi kaalin lixaad leh ka geysanayo sifaynta dalka iyo weliba sidoo kale ee markaasi ka hortaga dhibaateynta bulshada